labaatan jir meel ka soo naacle anaa ka qiimo badan oo furinta rag xabada kala rida ma fahanteen halganka barta aan ka soo bilaabay waxay ahayd dhagax tuur waxaan naftayda u huray aan laamiga isku dhigay iyadoo dhashiika lagu baacsanayo aan ugu doorbiday inaan naftayda u huro dalkayga maantana diyaar waxaan u ahay aan jiida ugu jiraa inaan dadkayaga iyo dalkayaga difaaco anoo gabadha ma fahanteen kuwa badan oo ways ognahay la soo hadlo oo dhaha farxiyay maxaa dalkii ka waran maxaa ka jira war inaad irtan kaalay haddaad xiniyo isku haysaan inaad irsan kaalay afqalalan looma baahnee aysan hayn dadka naacda kala tag halo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan kala hadlayaa dadka wax matarayaasha ah ee afka nool itaal baranbara anu waanu aqaano ee ka soo qaylinaya meelahan darsiyada waxaan idin leeyahay inaad irtani maanta uma baahne naace tani xiniyo u baahan tahay kii xiniyo isku hayow inaad irkaale kan kaalid af nool looma baahne ma fahanteen aysan hayn nacnacdaada dadka kala aamus nacnac maanta tani uma baahna waxay u baahan tahay awood iyo xiniyo u baahan tahay idinkoo heli karaya inaad qori qaadataan oo furinta gashaan oo ragga xabada la ritaan dee ha odhanina maxaa la yidhi intaad marba telefoon ii soo dirtaan raggaan waan is ogna waa rag badan insha allahu tacaala magacyadiina waan soo tixi doonaa haddii la yidhahdo 20 insha allahu tacaala halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ciidanka SCC baan salaamayaa hambalyaan leeyahay ciidan insha allah garabkiina waan taaganahay waan idinla dhaawacmay xabada ragga furinta waan kala ridaa doorbida inaan ragga furinta la galo aan raggayaga xabada la rido wadno aan cagahan dhulka ku hayaa geesinimadu waa in yaraad cagaha dhulka ku haysid ma fahanteen xabaduna ma kala laha rag iyo dumar labadaba inaad ninka wadno isku hayo iyo naagti wadno isku haysay deelaad irsan tan kaali xabada ka ma fahanteen marka insha Allah tacaala si waan ku dhaawacmay dagaalka insha Allah haddana waxaan ku faraxsanay dhaawacmay waan ku faraxsanay kama niyad jabin 8 bisha baan dhaawacmay 18 bishana walaalkay ugeer baa ku dhintay hadda waxaan fuurta u saaranahay oo aanu ooyi waaye oo aan qiiroon waaye oo aan dhaawacaygi baan xasuusnayn oo geerida walaalkay aan xasuusnayn dee anoo aari kara ma ooyayo mana barooranayo midaas waana guul ma fahanteen waana ku faraxsanahay ma fahanteen insha Allah tacaala halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Khaatumaystay dhammaantii maamulka Khaatumo ciidankiisa halkan ka salaamayaa waxaan salaamayaa dhammaan mas'uuliyiinta waxaan leeyahay insha Allah madaxweyne waxaad u dhaaratay dalkan inay cadowga safeeyna maleeshiyaadka argixisada islaam insha Allah tacaala anoo gabadhaan madaxweyne furintan ku jira oo raggan xabada la rida waana la dhaawacmay diyaar baan inaan la dhinto inaan la dhaawacno labadaba madaxweyne hawsha ugu horeysa aad qabatid waa inaan ragga safeeyna insha Allah tacaala deelay xafladan baa la socon madaxweyne ku qabanayno madaxweyne naga joojiye insha Allah ragga maanta iska saarno ayay xaflado qabsan doonaa cadeel leeyahay u faantay dumarka dhubaantan waxa leeyahay qaxay meelaha ka soo naaclow naayna kaalay tan baa idin ka baahan yahay naama aha xabadu haddaad maqashaan xabad iyo hoobiya dhacaya dee ma aha waa dhimanaysaa ilaahay baa wax dila ma fahanteen dee nin yaro xun wuxuu soo tuuray dee kuma dilayaan aniga wixii igu dhacay hoobiyii dee roob cirka ka soo dhacay inuu hoobiyaha wallahi ma kala garan xaqiiqatan mana dareemin xabad baan sii riday ma fahanteen saacad nus saac ka bacdi baan dareemay inay hoobiyaha waxa soo dhacay ma fahanteen kamana aan yeejmin mana aan biqin waaba ku sii dhiiradayba maantana kan waxaan u sitaa inaan walaalkay u aaro rag badan oo hayeeye ah oo shaadadii ka dhintay gobolka Sool inaan u aaro baan furinta ugu jiraan oo gabadh ah ma fahanteen insha Allah tacaala dadka idab darrada ee meelaha ka soo qaylqaylinayo idab darrada joojiya ma fahanteen haddaad wadna isku haysaan dee inaad irtan kaalay aysan hayn nacdina nagala taga awalba waxa tarayseen baa yaraay ma fahanteen haddii aan la yiraahdo dee waa ninkan waxba tan ka tarayno inaad naga dhuumo oo nacnacdaadana meelaha nagaga jir qisadaas markaan ka sheekeeyo runtii dhashiikana lagu baacsanayay waxa dareenkayga iyo shucuurteedu wallahi maalinta aad bay u kacsanayd waayo dhagoor aan laagma fadhiis xabadana kama aan baqaynin xabadii la igu baacsanayay waxaan ku dhiiraday inaan laagma fadhiisto ma fahanteen ma ku dhiiraday oo kama aan baqaynin xabad baa lagu dhufanaya iyo waa dhimanaysa labada midna kama aan baqaynin ma fahanteen maanta furintana waa aniga ugu jira arkaysid inaan furinta ku jiro marka waxa weeyaan wallahi halganka bartaan ka soo bilownay dhagax baan ku soo bilownay maantana barta uu marayo dee halganka waa loo jeedaa alxamdulillahi rabbil caalamiin wax ilaahay loogu mahadnaq waa anaga kaara iyo BM iyo sikaawa iyo dhashiika iyo maxaan tahay suuq badeed dee mid walba maanta waan haysanaa alxamdulillah maalintii aan halganka bilownayna dee dhagax baan tuuray ma fahanteen maantana kana sitaa ma fahanteen